السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله ودي سلامي لما الملك السجود أحبتي في العقيدة مقتدى وعد ونفسا إني شيء آد مهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه حديث كان سفي عن لنكس سفي عن حديث كان لنكس أثقل شيء في ميزان المرء يوم القيامة الخلق الحسن أثقل شيء في ميزان المرء يوم القيامة الخلق الحسن nabi wuxuu leeyahay shayga ugu culus ee miisaanka markii la saaro yawmal qiyaama maalinta qiyaamaha ama amalka ugu culus ee markii miisaan la saaro maalinta qiyaamaha waxa kamid ah al-khuluqul hasan dabeecad wanaagsan qofka markuu dabeecad wanaagsan leeyahay qoom walbo ayuu la dhaqmi karaa qof walbo ayuu si fiican u dhaqmi karaa qof walbo ama wadan walbo aado si farxad ay qofkaas ku noolaan karo lidalika fiir النبي عليه الصلاة والسلام markii la weydiiyay ayul mu'minina afdal mu'miniinta keeba ugu fadli badan nabiga kaleey salaatu salaam markii la weydiiyay wuxuu dhahay ahsanuhum khuluqa kooda ugu dabeecad wanaagsan ay u fadli marka midka qofka markuu dabeecad wanaagsan leeyahay wuxuu kamid yahay marka dadka kuwa ugu fadli badan ay kamid marka hadaba adiga hadaad u baahan tahay inaad dadkaas aad kamid noqoto oo nabiga tilmaamay kaleey salaatu salaam dadka kuwa ugu fadli badan hadaba dabeecadaada wanaaji dadka si fiican ula macaamul dadka si fiican ula dhaqan adigna farxadaad ku noolaanaysaa dadka kula jooga aad la joogtana farxaday ku noolaan doonto marka idan xibati fi al-aqida sidna umar amir al-mu'minin radiyallahu anhu arda mar ay saxaabadu wuxuu ku dhahay mu'miniinta dadku waxa diinta ugu yeertaan idinku aadan la hadlan saxaabadu waa yaabeen markaas wuxuu ku dhaheen sideen dadka macnaha diinta ugu yeernaa hadaan anaga aan hadlinba hadii la hadli waayo sidee dadka diinta loogu yeeraa in la hadlaal rabo markaas wuxuu dhahay dabeecadihiin wanaagsan dadka diinta ugu yeera maanta inta badan maanta muslimiin badan waxa ka maqan midaas ka maqan dabeecad wanaagsan ka maqan in badan waa la dukadaa alxamdulillah waa la soomaa laakiin marka aad u imaado dhanka akhlaaq markaad imaado dhanka dabeecadda markaad fiiriso in badan anaga maanta inaga mid ah dabeecadda nabiga kaleey salaatu salaam ina baray waan ka fogaan in badan marka aan ku dadaalno walaalayaal dabeecad wanaagsan ku dadaalno si aan ka mid noqono kuwa nabiga tilmaamay kaleey salaatu wasalaam aan ka codsanayaa videogan hadduu soo gaaro walaalaha kale khayrka la jeclo oo gaarsiiyo dakhilin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh